ma tahay qof miisaankiisu yahay ama ka agdhow yahay sidii la rabay? Ma u yaryar tahay lugaha iyo gacmaha? Ma u weyn tahay caloosha, dhinacyada, sinaha, xabadka qaybta hoose iyo dhabarka qaybaha dhexe? Haddii aadan qofkaas adigu ahayn, tilmaamahaas qof leh waxaa laga helayaa asxaabtaada ama ehelkaada. Aniguba dhowr qof ayaa hadda maskaxdayda ku soo dhacaysa markaan tilmaamahaas aan ka hadlayo. Haddaba dhibaatada noocaas ah wax weyn maahan oo waxaa loo yaqaan dadka dhibaatada noocaas ah qaba skinny fat. Sidoo kale waxaa loo yaqaan normal weight obesity. waxaa kaloo anigu aan u aqaan caato calool leh iyo magacyo kale. Waxaan muuqaalkan kuugu sharxi doonaa waxyaabaha sababa skinny fatka iyo sida lagu daweeyo ama xalka looga gaaro. Dad badan ayaa markii aad kor ka fiiriso u eg in jirkoodu sidii la rabay u dhisan yahay amaba ay dhuudhuuban yihiin, balse marka aad u yara dhawaato ama iyaguba ay miraayadda isku fiiriyaan ayay soo baxaysaa inay leeyihiin calool kuusan, lugo iyo gacmo dhuudhuuban iyo meelo kale oo u baahan wax ka qabad degdeg ah. Waxaa macquul ah in neeftoodu fiican tahay oo aysan horay ka daalayn markay samaynayaan jimicsiga noocyadiisa kala duwan, miisaankooduna sidii la rabay ka agdhow yahay, balse ma lahan wax muruqo ah amaba jirkoodu ma lahan muruqo u dhigma xeerta saaran oo badan iyo dhuubnida meelaha qaar. Isku soo wada duuduubo iskuma dheelitirna muruqaha iyo xeerta saaran jirkooda dadka noocaas ah ee loo yaqaan skinny fatka. Marka aan leenahay miisaankoodu waa uu ka agdhow yahay sidii la rabay, waxaan ka soo qaadnay inay isticmaalaan BMI ama body mass index halbeega loo yaqaan, oo inta badan xisaabtiisu ku salaysan tahay dhererka iyo culayska qofka iyo da'diisa. Dhaliisha uu leeyahay isticmaalka halbeegan BMI-ga ayaa ah inuusan xisaabta ku darayn imisa xeer ama faad ah ayaa qofka jirkiisu ka kooban yahay, taa oo ka mid ah anaasirta ugu muhiimsan marka laga hadlayo miisaanka caafimaadka ee aadanaha. Waxaa la sheegaa in qodob muhiim ah oo sababa skinny fatka uu yahay murqo la'aan ama murqo yari uu la tacaalayo jirka dhibanaha skinny fatka. Waxaa dhacda in dadkeenu halbeega BMI-ga ay kalsooni badan siiyeen kadibna ay xoogga saareen inay miisaan uun iska ridaan iyagoo ku rajaween in jirkoodu uu u ekaado sidii ay ku taamayeen, balse waxa ay la niyad dilmeen in jimicsigii fara badan iyo gaajo ay isku dileen muddo dheer ah kadib ay gaareen hamigooda qayb ka mid ah, taa oo ah inay miisaan iska rideen, balse ceebtu tahay inay weli sitaan xeer ama ay yihiin skinny fat, gaar ahaan caloosha iyo dhinacyadeeda markii laga eego. Walow ay jiraan miisaano ama halbeegyo kala duwan oo loo isticmaalo, qaarkoodna ay qaarka kale uga fiican yihiin meelaha qaar, haddana miisaanka ugu fudud uguna saamaynta culus waa midka indhaka cabirka ah ee aan isticmaalno maalin waliba ee loo yaqaan miraayadda. Dabcan markaad miraayad hor istaagto ayaad arkaysaa in jirkaadu ahayn sidii la rabay iyo in ay jiraan meelo u baahan wax ka qabasho xooggan misana degdeg ah. Haddaba waa maxay canaasirta ugu burburan ee sababa skinny fatka? Dabcan sababta aan wada garan karno waa inaan qaadano calories aad u fara badan. Waxaan wada ognahay in jirkeenu u baahan yahay energy ama tamar si uu u qabsado howlaha joogtada ee maalinlaha. Tamarta ama enerjiga aan cuntada ka helnana waxaa lagu cabiraa calories halbeega loo yaqaan. Marka haddii jirkeenu calorieskii uu u baahnaa ka badan aan siino, waxaa meesha ka dhalanayo inuu kaydsado calorieska dheeraadka ah kadibna ay isku bedelaan fat si loo isticmaalo markii energy banaanka ugu imaan waayo jirka. Haddii si kale aan u dhaho, markaan baahano wax cuntana aanan cunin, jirku wuxuu u noqonayaa keydkiisa xeerta, waana halka ay ka bilaabato inaan samayno xeer gubid ama miisaan dhimis barteed. Tusaale ahaan, haddii celceliska baahida calorieska aadanuhu ay tahay 2,000 oo calories maalintii, balse aan qaadano ilaa 2,200 maalin waliba, 200 oo dheeraad ah ee aan qaadanay waxay tegaysaa 1,400 oo calories 7 maalmood kadib. isku darkooda 200 ee dheeraadka ah waxay isku imaanaysaa 1,400 oo calories muddo 7 ah kadib. waxaana halkaas laga filan karaa ku dhawaad nus kiilo miisaan koror ah 7 kadib. 200 oo calories ee dheeraadka ah yeysan wax weyn kula noqonin, maxaa yeelay halkii gasac ee Red Bull cabitaanka loo yaqaan ama energy drinkska ayaad ka helaysaa ku dhawaad 220 calories. Haddaba iyadoo aadanuhu genetic ahaan almiitada ay sameeyaan iyo jinsi ahaan ay saameyn ku yeelan karto, haddana inta badan cayilku wuxuu aadaa caloosha. xeerta ku gaadaaman dhinacyadaada ama guud ahaan skinny fatka dhan waxaa lala xiriiriyaa dhibaatooyin caafimaad oo khatar ah iyo cudurro kala duwan. waxaana ka mid ah wadna xanuun, dhiigkar, sokorow, kansar, isku dhexyaac hormooniska dhinacooda ah iyo cimri degdeg.
sababaha keena skinny fatka waxaa ka mid ah qaab nololeedka fadhiidka ah ama sedentary lifestyle-ka. Qofka fadhiidka ah waxyaabaha uu cuno waxaa inta badan loo qoondeeyaa oo meel mariya unugyada dufanka ama adipose tissue, halka dadka jimicsiga sameeya calorieska jirkooda loo kala qoondeeyo murqaha iyo beerka si wacanna looga faa'iideysto. Arrinta walaaca leh ayaa ah in xitaa qaar keena jimicsiga sameeya aysan samayn wax ka badan 8 saacadood toddobaadkii, halka toddobaadku uu ka kooban yahay 160 saacadood. Wax ka yar 1% ayay ka noqonaysaa 8 saacadood oo jimicsi ah haddii aan sameyno. Arrinta oo muujinaysa in nolosha fadhiidka ahi aan ka agdhownahay qaarkeena sheegta inay jimicsadaan. Sababaha keena ku xadgudubka aalmiitada xeerta lagu gubo ama cardio-ga ayaa ka mid ah waxyaabaha niyadda ka dila dadka miisaanka iska dhimaya, maxaa yeelay haddii aalmiitada cardio-ga aadan sidii la rabay iyo intii laga rabay aadan ka samayn, waxay keenaysaa inaad lumiso murqo halka qorshahaadu uu ahay inaad jarto xeer oo keliya. Sidaa awgeed haddii aad isku mar lumiso ama aad jarto xeerta iyo murqaha jirkaada saaran, waxba micno ah ma samaynayso inaad miisaan dhinto, maxaa yeelay weli xeerta jirkaada iyo murqaha saaran waa isla miisaankoodii. Jirkaadana sidii uu markii horeba u kala buurnaa ayuu u kala buurnaanaya si waliba oo aad miisaan u lumiso. Yacni meelihii markii hore u weyneed sida caloosha ayaad mar walba u weynaanaysaa haddii aad cardio ku xadgudubto intii laga rabay ka badan aad samayso, isla markaana aadan samayn wax murqa dhisida. Ujeedada aan mar waliba xasuusanno waa in xeerta aan jarno, murqahana aan dhisno. Waxa aan diidannahayna ma ahan samaynta jimicsiga cardio-ga ee waa ku xadgudubka ama dhaafsiinta xaddigii loogu talagalay. Waxaa sidoo kale dhibtu ka jirtaa in dadka miisaanka dhimaya ay badankoodu galaan caloric deficit xad-dhaaf ah. Haddii aan si kale u dhahno, waxay jirka ku dilaan baahi iyo cunno-xumo, taa oo sababta in qofku keliya uusan jarin miisaani oo sidoo kale lumiyo murqo wixii jirka saarnaa haba yaraadaane. Skinny fatka waxyaabaha sababaha ka mid ah in dadka u saaxiibka ah aysan qaadan borotiin ku filan si ay u sameeyaan murqa dhisid. Sidaan wada ogsoonnahayna murqo dhisidda iyo borotiin qaadashada waxaa ka dhexeeya xiriir qotoma oo labaduba kalama maarmaan. Haddii aanan qaadan borotiin nagu filan inaan murqo dhisno iska daaya, waxaan halis ugu jirnaa inaan lumino murqaha yar ee aanu leenahay. Markii jirkaada murqihiisa ay hoos u dhac sameeyaanna waxaa sare u kac sameynaya darajada xeerta jirkaada saaran. Dhibaatooyinka la xiriira murqa luminta waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigo basal metabolic rate-ka ama BMR-ka, kaas oo ah halbeega lagu cabiro inta calories ee aan u baahannahay maalintii. Yacni maadaama murquhu ku shaqeeyaan calories, murqa dhimidna ay ku dhacday jirkeenna intii uu u baahnaa, waxaa ku imaanaya hoos u dhac, waxaana halkaas ka dhalanaya caloric surplus. Sidaan wada ogsoonnahayna calorieska dheeraadka ah ee jirka soo gala waxa uu geenayaa unugyada kaydiya xeerta, wuxuuna u bedelayaa fat.